aad baan uga xumahay uu iga go-ay kii hore iga go-ay markaa imika kusoo noqday runtii aad iyo aad baan uga xumahay runtii waan ka xumahay waana ka qiirooday runtii boqolkiiba boqol waan ka qiirooday mataqaanaa qof walba oo damiir ilaahay geliyey oo ilaahay mataqaanaa dhiig ku abuuray oo ilaahay jinsiyadda soomaaliga u abuuray oo ilaahay mataqaanaa damiir inuun uu ku abuuray dee waxaanoo kale uma adkaysteen waxaanoo kale mu daawadeen marka dowladaha ayaan maanta anigu halkan usoo fadhiistay ka mas-uulka ah dadkan ka mas-uulka ah ee leh annaga ka mas-uula ee laabta u garaacday cidda doonaan ha ahaadaan inay jawaab kasoo bixiyaan ubadkan iyo dhalinyaradan dunida dacaladeeda ku silcayay ku baaba-ayay saa loo geliyo ee jeedarka lala dhacayo weliba inta fideoyada loosoo duubo halkaa loosoo dhigayo dee inay ka digayaxanay adduunka usoo bandhigaanay ka hadlaanay yaradan dadkaygiibaa saa loo gelaya oo ay mataqaanaa ka hadlaanay ismuujiyaan ayay tahay maaha damiir xumo weyaan inay intay daawadaan dabeetana ay juuqda jarana iska aamusaan shaqooyinkooda kale ku foofaan waxyaabahooda kala qabsadaan tan oo kale waxa weeyaan tii lagaga digaxayo tan oo kale waa tii laga naxayay tan oo kale waa tii loo soo kacay marka waxaan idin leeyahay meesha doontaanba joogo mas-uul noocu doonaba ha ahaado mas-uul qaaday ee yiri dadkan anaa ka mas-uula fadlan waxaan aad iyo aad idinka codsanayna oo idinka baryana inaa shaashadaha isu soo taagtaan oo aa ka hadashaan oo aa mataqaanaa dacwad ka fidisaan oo lacagta loo haysto ubadkan yaryar ee dhulka lala dhacayo 10 laabkeed iyo 30 laabkeed baa ka bixin kartaan oo aa kala hadli kartaan oo kala xidhiiri kartaan dowladii ka mas-uulkahayd baanay dadkan maxaa ku haysataan lacagtoodana aa u shubtaan wacyigelina aa mataqaanaa ubadkan iyo caruurtan yaryar silcaya aa u fidisaan ayay de mataqaanaa ay hawshiina shaqadiina laakiinse waa gabteen baan idin leeyahay dowladii waa gabteen baan leeyahay hadda wixii ka dambeeya waxa la yaqaan qabto dawadood waa la qabtaa aana daatay dawadood waa la qabtaa hadda wixii ka dambeeya waxaan idinka codsanaynaa inaa mataqaanaa dadka u naxdaan oo ubadka u naxdaan oo mataqaanaa mas-uuliyadiina idinku mataqaanaa idinku beegan aa muujisaan oo shicibkiina u muujisaan oo tustaan baan runtii jecelahay iyagana waan usoo ducaynaynaa intiina mataqaanaa soomaalida ahee diirka lehee naxaysee dhiigga lehina dee waxay u ururin karta iyo waxay ku caawin karto intaba way u furan tahay runtii waa haysaan telefoonka waa haysaan in dadka ka mas-uulka qaarkood telefoonadooda waa haysaan waa batan lasoo dhigay meel walba lasoo dhigay marka haddii aa la hadlaysaan iyo haddii aa wax ku caawinaysaan iyo haddii aa mataqaanaa aw gargaaraysaan intaba way idiin furan tahay baan leeyahay se waxay ahayd marka ugu horeysaba anigu maxay tahay messagekayga ugu weyn aan meeshan usoo galay waxay ahayd inaan anigu mas-uuliyiinta halkan kala hadlo mas-uuliyiinta ka mas-uulka ah dhalinyaradan dowladaha dhalinyaradan ka mas-uulka ah ee tiri annagaa ka mas-uula ee magacoodii haysata in ay muujiyaan oo ay ka hadlaan oo ay soo fadhiistaan oo ay dowladaha iyo adduunkaba usoo bandhigaan yacni fideoyada caynkan oo kale ah intay qaadaan ay adduunka usoo bandhigaan oo ay yidhahdaan waxaas ayaa dadka iyaga lagu samaynaya yacni xaquuqda islaamka ayaa la baalmaray ma waxa la arkay qof bili-aadan oo waxa laali wuxuu kugu sameeyey jirinoo inta la xidhay weliba isagii la garaacayo video laga soo duubayo qaar baa sacuudiga lagu balanbalayaa sida doon lagu gala qaar baa libiya aad aragtaa se lagu gelayo qaar baa mataqaanaa yacni dee dhimasho anigu waxaan ka hadlama garanayo runtii aad iyo aad baan runtii u qiiraysanahay dhammaantiinba aad baan idin salaamayaa waxaan jecelahan rajeynaya inay dowladihii mataqaanaa ka mas-uulka ah ay jawaab ka soo celiyaan ay ka hadlaan caruurtanna waxa loo haysta ay ka caawiyaan ay la xidhiidhaan waalidadooda oo soo taagan halkaas ee leena caawiya